waqti ugu naxdin badnaa Jiddo iyo Maka dhexdoodaan maray baabuur shil galay oo baaba'ay baan soo marnay laba dhalinyaro saaraaye mid waa dhintay midna waa sakaraad gaarigii baaba'ay muusig baa ka shidan balad iyo baaskii intii kala burburtay meeshii muusikadii iyo samaacadii ma burburin way ladan tahay wiilkani hees buu qaadayaa baashii u dambeysay uu la qaadayay buu la mirqaansan yahay waana sakaraad waa sakaraadaya waa gawaaridii baa la wada istaajiyey waa la soo wada degayo waa la wada qabtay wara shahaado laa ilaaha illa allah laa ilaaha illa allah yaa allah hadli aday ku taala sheekadaas anagoo taagtaagan oo uu heesaya nafta ka baxday amarna aytama ya allah yalcan abuukada uu ku hayo baa nafta ka baxday haddii kaas waxa ku dhacay dee wax gaara ma haynine waxaan buu ku mashquulsanaa inna waxaa la ii sheegay Soomaaliya ninba wuxuu yidhi waxaan taagnaa ardayda la foola ka soo baxay oo jidka taagan baa gaari ku dhacay ninkii koobuu galay waa la isugu yimid ninkii waana miyir leeyahay quraan buu aqrinayaa markii dambaan waraysanno waxaa la yidhi quraanka aad waa xifdiyo 24 saac quraan akhriyoha ninkan quraanku akhriyay buu ku nafbaxay ninkan heestu qaadayay buu ku nafbaxay labada ina kala doorataa ku taal la yazaalu lisaanuka ratban min dhikrillah dhikrillah inuu badino adduunku wax badan baa soo kordhaya hadda meelaha qaarkoodna imisa nin baa inay naga safartay meeshuu ka degayba gaari qarxay baa la tagay la yiri qof walba wuxuu ilaahay ku la hortagayo wuxuu ku dhintay baa aakhira lagu soo saaray afkana maba aamusi karaba carabkan laba xajin karaba waayii hore waxaa jira ninka darawalkii iyo markuu gaariga wadee hadda telefoon baa yaala bal wax yar soco wax yar markaa joogtaa dad waxa la hadasho weeyo kanaad soo qaadi oo diri isagoo darawal oo wada saaran buu diri wax macno oo markaa hadalka dhageysata kaga xidhan ma jireen uu aamusi laayay ma aamusi karo haddaad maanta oo dhan socoto mid baa heesaya mid baa wax kala qaadaya mid baa wax u akhrinaya wax u baad ka fikiri wax u baad ku mashquulsan tahay marka halkan ka baxdo ee guriga tagto bal inta xisaabtanto waxaad ku soo mashquulsaneed maxaa natiijo ka haysaa waxba kulligu qiiq iyo hawuha waxaa leena barayaa marka dhikriga ilaahay gari bedelkeeda boodha saaran tahay maxaa ku diray subhanallah ina tiraado alxamdulillah wallahu akbar subhanallah walxamdulillah wallahu akbar wax ku diray jira subhanallah bihamdi subhanallah alazim ma kharash baa ka bixi ma energy baa ka bixi ma jidkii baad ka daahi haddaad gaari wado darawal tahay iyo haddii aad dhexda ka saaran tahayba dhikriga ilaahay baa nabigu fudeedkiisa markuu sheegay waa ka yiri kalimataani khafiifataani cala lisaani laba eray carabka u fudud miisaanka aakharana culus allana jecel yahay subxaanallahi wa bihamdihi subxaanallahi alcadiim intaa inaad tiraahdo subxaanallahi bihamdihi subxaanallahi alcadiim halkaa markaad safka hore ka dhaqaaqdo ilaa aad kabaha xidhato imisa jeer baad dhihi kartaa ilaa aad gurigaaga tagto imisaad dhihi kartaa nabigu waa kii mar kala baray laa ilaaha illa allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir riwaayad qaarkood yuxyi wa yumiitu calaa kulli shayin qadiir 100 jeer haddaad akhrido intaad camalkaad samaysay qof kaa tira badiyey maahane camal ka khayr badan maalintaa qof samayn karaba ma jiro laakiin maalintoo dhan baa ku dhaafi hal mar adoon subxaanallahi bixamdi subxaanallahi alcadiim dhihin waa mashquulsantahay indhahaagii waa mashquul maskaxdaadii waa mashquul afkaagii waa mashquul haddayna dembi ahayn maalaa yacni waad ku mashquulsantahay saa darteed ba waxaa layna barayaa laa yazaalu lisaanuka ratban min dikri illah qur-aanka dhanba salaada marka laga sheekeeyey waxaa la yidhi tanhaa cani ilfaxshaa'i waalmunkar wala dikru llaahi akbar dikri ilaahay baa ka sii weyn waayo salaadu 5 jeer bay soo noqotaa qof 5taa jeer ilaahay xasuustay iyo qof maanta oo dhan rabbigii xasuusanoo dikrigiisii hayaay dee ma sinaan karaan malaa'igtu waad ka daalin kartaa malaa'ig baa lagu xil saaray haddaadan carabkaba dikriga ka qaadin iyana qalinka yeela joojini wey dikriga ilaahay gaar ahaan xilliga qafladda dadku waxa kale ku mashquulaan maskaxdu ay maqan tahay xilliga fitanka ah waxay ka ajir badan yahay waqtiyada kale nabigu bisha rajab bisha shacbaan baa aad u soomi jiray waxaa la yidhi maxaad u soontaa wuxuu yidhi dadkaa halmaama inta badan rajab bay dadaalaan ramadaankana way dadaalaan shacbaan dhexday ka baxdaa bishaasaa noolaynayaa marna waa kii nabigu yidhi xadiidkii muhaajir ibni qufud
alcibaadatu fi lhajri ka hijratin ilay markay dagaalka iyo fitanka iyo buuqu socdee la kala qaxayo qofkii cibaadadii ilaahay iyo salaadii iyo dikriga xasuustaayay nabi maxamed oo nool calayhi salaatu wasalaam qof hijro ugu tegay buu la mid yahay ka hijratin ilay ajirkaasay leedahay markay fitanku socdaan ee dadku kala cararaya mashquulsan yahay dee waxaan baaseen ku mashquulsannahay oo kaleeto wey markay sidan tahay munaasabaadkan oo kale la joogo dikriga ilahi baan u baahanaa dikriga ilahi waxaan kusoo gabagabaynayaa oo carabkaaga aada badisood bartaay waxaa laga yaabaa mar inaadan joogin oo madaxaagu maqan yahay maskaxdaadu markay maqan tahay way haasaawaysaa carabkaaguna dikriga ilaahay inuu hayaa dhici karta xilligan dambe xanuunadii jirooyinkii sakaraadkana waa mar walba waa sugayaan qofka oo ilahay uu ku tilmaamay wajaءat sakratu lmowti bilxaqi dalika maa kunta minhu taxiid wax waalli camal ah weeye mowtku markuu yimaado garashadaa tagta dareenkaa tagta xakamayntaa tagta qofku ismooga wuxuu leeyahay waxaad ku dhimatun baan aakhira lagu soo saaree u dambeeya afkaaga walidaalika nabigeenu waa keena baray qofka tawxiidka carabka ha loo mariyo markuu dhimanayo si isagoo tawxiid haysta loo soo saaro dikriga haddaad badiso markii aad xanuunsato isku dardarmato xaalad kadiisa kugu dhacdaay dikrigiibuu carabkaagu boobiyo isagu wuxuu yaqiinay buu ku celcelin ninkii heesta aada u qaadi jiray heesi jiray isagoo heesaya naftu ka bixi walidaalika ragga odayaasha ragga ayagoo kale wax badan baan goobjoog u soo ahayn nin qur-aan ruug ahaa oo markay sakaraadku qabtay qur-aankii bilaabay ismooga iyo nin maantao dhan heesi jiray waraa shahaado laleeyahay suu heestii u qaadaya naftu ka baxday intaba aragna wixii aad ahaan jirtay markaad miyir qabtay aada ugu celcelin jirtay marka miyirku kaa tago isagii baad ku celcelin isagii baana lagugu soo saari oo nabigu wuxuu yubcau lmaru calaa maa maata calayh qofku wuxuu ku dhintay baa lagu soo saarayaa laba kee kugu roon marka maantoo dhan social baasaa laga yiri iyo heese iyo inaad celceliso oo markay naftu ku qabato iyadii adoo qaadaya dhimato adoo heesaya aakhare lagu soo saaro iyo dikriga ilaahay ajirna lagaaga qoray intaad barato carabka baratood ku laylido markii xanuun kaa tira batee kadis kugu yimaado isagoo dikrigii akhrihaya aad dhimato oo adigoo subxaan allah le aakhare lagu soo saaray kee ku roon nafya shaydaan baa ina duursane qof kastoo muumina ka fiican waa garanayaa saas darteed munaasabadahan dikriga ilaahaynu badinno adkaarta ilaahaynu badin xilli fitan badan baa lagu jiraa geeridii degdeg ahayd way iska badatay diyaarad baa dhacay marka baa quusay doon baa la degtay shil baa baabuur galay kansar baa ku soo booday wadnaha istaagay maskaxdaa dhiiggii fadhiistay wax jinniya jaanun baa la sheegayaa cudurradan ma jiri jireenoo innaga aan aqoon mise hadda dembigii iyo macsiyadii baa bato cudurradii baa soo batay allahu aclam kolba calaamadaha qiyaamada soo dhowaanshaheeda qaar culimmadu waa ku daraan mowdkan faj'ada ee degdega ee la wada dhimanayo waxaa igu naxdin badnayd wakti igu naxdin badnaa jiddo iyo maka dhexdoodaan marayay baabuur shil galay oo baaba-ay baan soo marnay laba dhallinyaraa saaraaye mid waa dhintay midna waa sakaraan gaarigii baaba-ay muusig baa ka shidan beledii iyo baaskii intii kale burburtay meeshii muusikadiiyo samaacaddii ma burburin way ladan tahay wiilkani hees buu qaadayaa baashii u dambaysay uu la qaadayey buu la mirqaansan yahay waana sakaraad waa sakaraadayaa oo gabaaridii baa la wada istaajiyey waa la soo wada degayo waa la wada qabtay wara shahaado laa ilaaha illa allah laa ilaaha illa allah yaad la hadli aday kuu taalla sheekadaas annagoo taagtaagan oo uu heesaya naftu ka baxday oo marna caytamaya allah yalcan abuukada uu ku hayo bay naftu ka baxday haddii kaas waxa ku dhacay dee wax gaara ma haynine waxaanbuu ku mashquulsanaa inna waxaa la ii sheegay soomaaliya ninba wuxuu yidhi waxaan taagnaa ardaydii la foola ka soo baxay oo jidka taagan baa gaari ku dhacay ninkii koobuu galay waa la isugu yimid ninkii waana miyir leeyahay qur-aan buuna akrinayaa markii dambaan waraysanno waxaa la yidhi qur-aanka aad waa xifdiyo 24 saac qur-aan akhriyu ahaa ninkaana qur-aanku akhriyayibuu ku nafbaxay ninkana heestuu qaadayibuu ku nafbaxay labadaa inaad kala doorataa kuu taalla laa yazaalu lisaanuka ratban min dikri illaah dikri ilaah aynu badinno adduunka wax badan baaba soo kordhaye hadda meelaha qaarkoodna imise nin baa inay naga safartay meeshuu ka degayba gaari qarxay baa la tegay la yidhi qof walba wuxuu ilaahay koola hortegayo wuxuu ku dhintay baa aakhara lagu soo saari ilaahay khaatamada ha inoo soobiyo camalkeennan iyo dikri ilaahayna allah inoo fududeeyo allahuma inaa nasaluka alhudaa waltuqa walcafaafa walghina
اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم زكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة